الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقرين إلهي سبحانه وتعالى ومهدنا قياه كلن كان في عن إنه كل ميي مرلبات كان وحنو مهدنا قياه ولالكين يوسف شاعر يا خيارتك ليال كان يسوق تيمية هرتي هذا الشيء. waxaan u malaynayaa hadalkii waa la dhameeyay oo talooyin fiican oo ninba inuu ka qaatay bay soo jeediyeen khiyaarta sharafta leh halkan isugu timi. waxa quraan waan ku darayaa wuxuu yahay qofku Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu raali geliyo ayaa arinta ugu muhiimsan. bani aadamka qofna raali gelintooda ma gaaro. imaam Shaafici rahimahullahu ta'ala wuxuu rida الناس غاية لا تدرك. dadkoo dhami raali inay ka noqdaan waa yoolan la gaari karin. qof walba cid jecel oo amaanaysa iyo cid neceb oo dhaleecaynaysa waa la helaya. ilaahay qofka subxaanahu wa ta'ala inuu raali geliyaa waxay sabab u noqotaa in dadka intooda wanaagsan ilaahay subxaanahu wa ta'ala qulubtooda u geliyo khayr iyo jacayl iyo in raali ka noqdaan. waxa kale oo aad u taageerayaa hadalku yiri macallin Baaruud oo ahaa qofku inuu isagu marka koobaad tiisa eego oo waxa isagu ku jira dan ma u yahay mise maaha, isaga qalbigiisa ma ku degay mise kuma degana, ayaa ka horeysa dadka kale tooda inuu eego. oo rasuulku kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri albirru husnul khuluq khayr oo dhami akhlaaq wanaagu ku ruusan yahay والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وحي قلبي أقوى أقبلي وايو يا دبستو عريرات كدرينتو تصابع على مضوى إنه يهي وح دنبئة تدكون إني كوا أركانات دبستو. ولكن عبد الكريم وحنكوا وافقسانا هاي ولا لها كلاو هوشا سيد كودا جيرتين وإنه أرقنين يهين ضد مسلمين. arrinkaas ayuun baynaan ku waafaqsanay, laakiin waa gaalama lihiin dad muslimiin aynu aragnaa horena waan u sheegay taas. dadkoo dhamina way khalad u ka dhacaa. qof walba muslimana waajib saaran weeye wixii khalad uu isku og yahay inuu Ilaahay uga toobad keeno sida Ilaahay uu yiri watuubu ila Allahi jamiican ayyuhal mu'minuun la'allakum tuflixuun. marka Cabdi Kariim waxaan ku waafaqsanay inaan dagaal idinka dhex ridin iyo fitno hadal wanaagsan. قولوا للناس حسنا سيد الله سبحانه وتعالى ويري dadka hadal wanaagsan ku dhaha oo nasteexada iyo talada fiican walaalaha wax weeyaan aad siiso, laakiin dagaal iyo fitna iyo hadal inaan la idinka dhex abuurin. waxa kale intaas aan ku darayaa waxaan fanka loo yaqaano ama heesaha qaabka hadda ay u socdaan heesu way nooc badan. hees hawleed wax la dhaabaa jirta oo reermigeenu geela u heesaan xoolaa marka la waraabinayo loo heesaa haddii midhaheedu aanay xumayn midhaheedu hadal fiican ay yihiin wax xaaraan lama odhanayo. sidaas oo kale gabayga culimadu waxay yiraahdaan gabaygu waa hadalkoo kale kiisa wanaagsanina oo wanaagsan kiisa xumina uu xun yahay. gabaynimada xukum kale kuma qaadanayo. laakiin heesaha maanta jira heesnimo qura xataa kuma eka waxyaabo fara badan bay jiidanayaan kolley rag الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهي هاينا وأنفعه نبينا محمد هانا كصلينا اللهم صل وبارك عليه وحيابها بركية كل مدى. intaa kadib kulanka waan kulliba waan inoo furi waana xanfilayaa inuu iska kooban yahay waqti damana waa joognaa. horta kulanku awalan waa Ilaahay dartii wax ka hooseeya intaa ma ogi. qodobka labaad waxa weeye walaalkeen Maxamed Saciid Cabdi oo waxay oran jireen biike ayaa aynu isku barbartaagaynaa go'aankii geesinimada lahaa oo qaatay
ilaahay waafajiyey inuu hawshii lagu ogaa uu faraha ka qaado qodobka labaad waxa weeye duco inaynu ducayno qodobka saddexaad wixii dardaaran iyo tala ah ee aynu siin karo inaynu siino horta nuxurka marka si guud loo tilmaamo waxaan filayaa intaasuu buu ku ururayaa qodobka labaad Soomaalidu waxay tiraahdaa ceel nin galay oo aan ka soo waramin nin maaha hadii ceel gunta lagu geeyo marka laga soo saaro waxa ka warno taado waarni u dhaaba wasku hayo ceelkiiba waruma hayo maxamed de guntu galay waa ragii isha galay isaga inoo warami doona annaga laftayadu waxay tiri gabadhii heestay haddaan dambiga dhacay docdayadana waa koow adna daahir kama yihid annaga laftayadu abwaanka iyo fanaanku waa iska ag dhow yihiinoo marmar baan wax samayn jiray waxaan leenahay dee waa walow anigu aanan badsan oo fanka aanan caan ku ahayn haddana kolleyba abwaan marka la yidhaahdo waa laga yaabaa in lagu xusuusto wixii horena waxaan leenahay annaguna dee tooba wixii dambana in aanu ummadda dhinaca wanaagsan anigu ilaa intii sugaanta aan bilaabay ee aan xusuusto marra nabadayn bay ahayd marra sugaanta islaamiga ah ayuun baan tirinayay imikana waaba kasii xag jirtaay oo afkaaro qalloocan oo badan ayaa soo batay oo kuwaasaanu islaamka ka difaacnaa kolleyba aniga warkaygu waa kaa maxamed oo quran ma ahayne nin kaloo isaguna jiray oo aanu isna casuunay caawa oo la yidhaahdo cabdihani oo isaguna raggii maxamed iskuuladka ahaayena uu naga cudur daartay waan wada hadalay oo uu naga yar cudur daartay waa jeclaysnay inuu caawa inala joogo axmed biif nin la yidhaahdo isaguna kaba sii horreeyey nimankan oo waxaa inooga warrami doona kolleyba maxamed iyo shiikha iyaba inooga warramay ayaa isaguna jiray iyagana waynu jidkaa wanaagsan ay qaadeen in ilaahay u sii adkeeyo ayaynu ugu ducaynaynaa waxaan filayaa dee malaa waa badiyey anigu waa inahaasun furitaanka kulanku inuu sidaa ahaa iyo caawa uun bogaadinta aynu maxamed siciid go'aanka iyo jidkaa uu qaaday aynu ku bogaadinayno waana dabayl iska khayr hoo socoto oo dad badan maxamedna iyo ragga kalebana waxaan leenahay dee haddaa guurteenoo meel barwaaqa aad degteen ragga abaartii ku hadhay dee aynu u yeedhno oo u baaqno oo idinkaa dee kolleyba sii garanayo sii fara dhuudhuumane ciddii kale as leedihiin hawsha halkaa ka sii wada oo dee maxay ohan jireen qodobka tabliiqiintu tashkiilintii sameeya ilaahayna waxaynu ka baryaynaa ciddii waddo khaldan haysa inuu ka soo duwo oo jidka hanuunka uu ku soo duwo fankuna sidiisaba dee xagga diinta culimadii waa joogtaaye anigu markaan imika ka hadla xagga sugaanta taya ahaan baaban imika loo sii wadi karin wuxuu marayaa fanka Soomaalidu intii la bilaabay malaa nus qarni 60 sano meelahaas uu jiray fanka Soomaalidu maanta maalin uu ka liitaa bal waa lagu soo bilaabay afartanaadkii markii dambana heelaa ku xigtay markii dambana heesahan imika la yiraahdo hees ayaa ku xigtaan filayo 66 meelaha in loo bixiyay heesta ilaa inta maanta maalin uu fanka Soomaalidu ka hooseeyo oo ka liita ma jirto marka waxa aan oran karaa maxamed iyo lodkiisu tay ahaan baabaanay u sii wadi karin erayada lagu heesayo maanta aniga waan yaabaabo oo waba laga baxay anagu waxaan la eegi jiray miisaan iyo qaafiyada iyo inaad wixii lama jiro iska sheekaynaya jumjamtaasu bala dhadaa iyo muusiga iyo waxaasba marka taasna waxaan filayaa xagga fanku inaanu uba sii socon karin sidoo maanta yahay tayadiisu anigu furitaankaygii intaasaan ku soo gabagabeynaya maxamed baan bal horta dee waxyaabaha ku kalifay iyo intuu hamigan qabay islaha aad ka baxay bahalkan iyo bal inuu xoogaa warbixina inaga siiyo iyo fikirka iyo cid la talisay iyo inuu soo kale go'aansaday iyo bal inuu fikrad noocaas bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahi baa mahadle anigu laba kelmadood baan oranayaa xirtan karaamaysan ma sha Allah caawa la fadhiyana aad baan u salaamaya waana ku faraxsanahay dhexdooda inaan fadhiyo oo sheekhu noogu weeyay ma sha Allah Yusuf Shaacir waxaan balyeynaya si qurux badan saaxiibkay heesa badan u lahaana
oon qaadi jiray baa jirto markii ugu dambeysay midhaha isagaan ka qaadan jiray oo raggii rasaasta markuu dee abwaankaanu ka guran jirnay raggii ugu rasaasta adkaabuu ahaa waan ku faraxsanahay inuu jidkaygii soo maray dadkuna way iska soo daba dhacayaan maasha allah waxaan leeyahay inta kalena albaabadaan ku garaacaynaa si fanka uga baxan oo wadada khayrka noo soo maraan aad baa u mahadsantihiin